بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. labada daris ee la qoondeeyey siduu walaalku sheegay waxay ku saabsan yihiin ashubuhaat washahawaat, madmadowga dadka diinta laga geliyo iyo dariiqa xaqa ah, iyo shahawaati nafs, waxyaabaha naftu ay jeclaysato ee baadinimada keena. midna xagga caqiidadu galaa labadan shay, midna xagga acmaasha ayuu galaa inta badan. waxay culammadii hore odhan jireen labadani waa aslaa shari fi lwujuudi alinsaani bay dhahaan. sharka bini aadamkaba labadan baa u asala. waa laba xanuun oo ku dhaca qulubta qofka bini aadamka ah oo ka fogeeya ilaahay cabsidiisa, ilaa xad ay bacd alculamaa ku tilmaamaan afdalu nnaasi man lam tufsid ashahwa diinah walam tazil ashuhba yaqiinah. dadka waxa u fiican bay dhahay ninkan diintiisa aanay shahwaatu nafsigu ka fasahaadin, ama yaqiintiisa iyo iimaankiisa aanay ka khalkhalgelin shubahaadka. ee aakhire wuxuunbaa badbaadaya yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. waddannada muslimka markii la joogay, marka shubahaadka laga warramo inta badan waxay ahaan jireen shubahaatu ahlilbidac. dadka bidcaadka ku dhacaa waxyaabaha qaldan ay ismoodsiiyaan inuu sax yahay ee ilaahay ku caabudaan. laakiin duulkiina halka jooga waxay inta badan iyagu la kulmaan waa shubahaatu ahlilkufr. waa madmadowga dadka laga gelinayo rumayntay diintooda rumaysan yihiin, hadday tahay arkaanuliimaankii iyo hadday sharaa'icda tahayba. ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rusushiisii iyo kutubtiisii iyo qiyaamaha iyo jiritaankiisa iyo ghaybka oo dhan. shubhadu marka fi luga waa aliltibaas waalikhtilaat, waa shaygoo dheehma, xaq iyo baadilku aad kala saari kari weydo, oo qofka maxaa xaq iyo maxaa baatila waxyaabaha u kala caddayn kari waaya. haddaba shubhadu inta badan aynu tilmaamayno ama aan rabno inaynu wax ka tilmaamno waa shubahaadka caqliga ee diiniga ee caqadiga ee qofka diintiisa ka xumeeya. waana xad hadduu shubhadaasi qofka galo waa marad. ilaahay uu qur-aanku inta badan munaafiqiinta iyo kafarada iyo ahlu shakiga iyo dadka noocaasiya uu kaga warramo fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada ilaahay ku tilmaamayo. waama aladiina fii quluubihim marad fazaadathum rijsan ilaa rijsihim wamaatuu wahum kaafiruun. waa marad marka koowaad inta badan masaa'il fudud ku bilaabma, laakiin marka dambe diin la'aan dadka bada. marka dambe diin la'aan dadka bada. een kama hadlaya in badan shubahaadkaasi iyo radintooda. waxaa laga yaabaa goobo aan tan masaajidda ahayn ama meelo kale in lagaga hadlo, laakiin waxaynu tilmaamaynaa feejignaanteeda iyo sida loo daweyn karo.
oo asiiba dadkan waaweyne waayeelka wax iyaga la gudboon ubadkii iyo dadkii in looga feejignaado mashaakilka kan iyo siyaabihii loo daweyn lahaa shubahaadka qaarkood waa طائف من الشيطان oo waxaa ku filan alisticaada waa waxaan bini aadamka qalbigiisa degana khawaatirun ku soo dhacdaya oo inta badan qofku iskaga difaacayo sidii xadiidkii nebigu uu sheegayey inaad shaydaanka iska naartid acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim shubhaadka qaarkoodna inta lagu celceliyo jawaanib badan laga keeno ayay degaan dadka badh kuwaasi waxay u baahan yihiin fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun in dadka aqoonta u leh waxa kan la weydiiyo ilaahina subxaanahu wa tacaala kitaabka qur'aanka ah ma jirto iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam gaala shubha ay soo arooriso aanu ka jawaabaynin ilaahay nebigiisii moxameda calayhi salaatu wasalaam ba wuxuu ku leeyahy walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira wax kastoo ay kuula yimaadaan waxaanu kuu keenaynaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wax fardaamin kara oo xaq ah kitaabkaasi ilaahay wuxuu ku tilmaamay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay wahudan waraxmatan wabushra lilmuslimiin kitaab baanu kuu soo dejinnay wax walba kuu caddaynaya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wax walba caddaynaya oo hanuun iyo naxariis ay ugu sugan tahay dadka rumeeya dhibteennu se waxay u badan tahay kitaabkaynu ghaafil kannay oo wixii wax daweynayey ayaynu moogannahay waxaa laga yaabaa dadka intiisa badani inaanay akhriyi karinba inta akhriyi kartaana inteeda badani inaanay fahmi karin inta wax ka fahmi kartaana in badanoo ka midi waxay u baahnaayeen inaanay kala soo bixi karin ka istimbaati karin ayo inaad darajadaa gaadha waa masale dambe laakiin waxay leenahay xaqiiqa ahaan wixii loo baahnaa isagay ku jiraan rusushana hadduu kay la hadlayaan mulxid yaana ilaahay jiritaankiisa rumaysnayn iyo hadduu yahay ku ilaahyo badan rumaysan iyo hadduu yahay ku aakhiro inkiraya iyo hadduu yahay ku rususha inkiraya qur-aankan baa la yidhi nebiga kula hadal calayhi salaatu wasalaam lama odhanin meel kale daliil uga baadi doon waayo rususha daliilo kale waxyigaasaa la soo siiyey taa macnaheedu waxa weeyaan dadkan dhammaantood bikulli fi'atihim isku dar hadday malaaxida yihiin hadday ilaahyo badan caabudayaan hadday aakhiro dafirsan yihiin hadday rususha dafirsan yihiin hadday malaa'igta dafirsan yihiin intaba ilaahay wuxuu kula hadlayaa qur'aanka kan taa macnaheedu waxa weeyaan intaas oo mas'alo oo la tilmaamayo xujadii aad u baahnayd dad lagu qancin kari lahaa waxay ku jirtaa qur'aanka kan waxay ku jirtaa qur'aankan laakiin dadka markaa diintoodana jahli kaga dhaco isla markaana fitankana ay mucrad u yihiin ay u banbaxaan meesha beledu taallana siduu u badbaadayaa su-aashu waa kaas yacni waxaa laga yaabaa sayfid shal ciddii ku jirtay waddankiisii iska joogtay dad isku wada diina oo caqiido qura wada rumaysan oo caynkani aqoon badan ba ayaanu lahayne bulshada iska dhex socdo inuu badbaadayo laakiin markaad adiga iyo ubadkaaguba u soo banbaxdeen meel kale wada diina bale diimaha dagaal lagula jiro bale waxay yidhaahdaan trendka ugu badan hadda ee la filayo sanawaadkan inuu kor u socdaa waa 3 qadiyadood bay yidhaahdaan
waa atheism qadiyadda diin laawanimada iyo ilaahay ma jiradu kor bay uga socotaa galbeedka qadiyadda shuduudka iyo ragga ku kaaftoomaya waxa la mid ah iyo faafinteeda iyo dhigisteeda iyo qaanuun samaynteedu kor bay u socotaa qadiyadda mukhaadaraadka iyo taqniinkeedu in la qaanuuneeyo stabiskeedii baa bilaabay yana kor bay u socotaa waxaan filayaa waqti aan sii fogeyn inay mukhadaraadku la noqon doonaan sida khamriga iyo sigaarka iyo kuwa dushun lagaga qori doono waa khatare naftaada ka ilaali iyo waa lagu dhintaa iyo waxaa inta dusha lagaga qoro in la odhan doono xorriyadda dadka iyo xuquuqdooday ka mid tahay oo ay dadku iibsan doonaan saddexdaasiba xog bay uga socdaan galbeedka saddexdanina waxay ku saabsan yihiin labada masale aynu tilmaamayno darsigeennan iyo ka dambeeya saddexdaba dawadoodu ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa laakiin innaga markaa waxaa ku kulmaya dadka kan jahlun biddiin oo ah qofkani wuxuu diin u haystaa xoogaagii uu maqmaqli jiray reerahooda uu ka soo maqlay berigii uu waddanka joogay wixii uu meelaha ka maqmaqlay wax sax iyo wax qaldanba laakiin meel la taqniiniyey oo la nidaamiyey kufriga iyo sida loo dhigayo la taqniiniyey xumaha iyo sida loo sharxayo wax walba xorriyad iyo xuquuq laga dhigay oo qaab xorriyad bini aadam iyo xuquuq bini aadam ah loo soo bandhigayo oo shubahaadkaasi tiro badanayaan iyo si laysaga celin lahaa waa adagta qofka ahlu cilmiga waa laga yaabaa masaa'ilka qaarkood inay mugdi ka galaan hore u garan kari waayo laakiin dee masalaad kun daliil u haysata xataa haddaad hal masale ka garan kari weydo wax badan qofka kuma samaysa saa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waalraasikhuuna fi lcilmi yaquuluun aamanaa bihi kullu min cindi rabbina kuwa raasikhay baa ilaahay yidhi iyagu wixii masaa'ile xagga alle ka yimi way tasliimaynaya xataa hadduu masalada hore u garan kari waayo waayo dee masaladaad kun adilla haysato hal shubho loogama tago haddaba hadda waxaa badan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii uu tilmaamayey xudayfata bnulyamaan saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi dadku nebiga khayrkay weydiin jireen aniguna sharkaan weydiin jiray buu yidhi anigoo ka cabsi qabo sharkaasi inuu soo gaadho dabeetana khayr baanu hadda haysanaa khayr ma ka dambayn doona shar ma ka dambayn doona haabuu nebigu yidhi khayr ma ka dambayn doona khayr baa ka dambe wa fiihi dar wuu soo waday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markii dambe ku yidhi waxaasoo dhan waxaa kasii dambayn doona ducaatun calaa abwaabi jahannam man ajaabahum ilayha qadafuuh duul jahannamo dadka ugu yeedhaya maalan ilxaadka oo kale taariikhda dheer oo bini aadamku ka mid yahay oo qaybo falaasifada ka mid oo mulxidiini way jiri jireen laakiin mulxidku kuwa aan ilaahay rumaysanayn maxay siday u noolaayeen filosofkii holandiis miyuu ahaa sbanuza la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay cala almulxid assumtu walictizaal buu yidhi assumtu walcuzla waxay ahaan jirtay buu yidhi qofku markuu shakigu galo ee waxa kan uu ku dhacaan inuu iska aamuso oo keli iska noqdo nolosha ka qanco oo waxa kan waayo qofkaasi tuunal madow buu galay tanal madow noloshoo dhan baa mugdi noqonaysa sababta waa maxay qofkani wuxuu garan waayayaa why am I here maxaan u noolay maxaan halka ka qabanaya maxaan ka shaqaynaya xagaan ku socdaa xagaan ka imi noloshu maxay tahay therefore wuxuu ka baxayaa noloshoo dhan wuxuu arkayaa meaningless alxayaa kullaha waxaan qiimo lahayn buu u arkayaa noloshoo dhami dhadhan yeelan mayso heeba inaad adigu tidhahdo ilmo muxuu wax u baran waaya muxuu shaqtay mise arkaba inay qiimo leedayba wuxuu arkaa inuu dhintaa inay ka roontay inuu noolaado waayo wuxuu rumaysan yahay kadeedkeedaabaad ka raysan lahayd haday kaa baxdo noloshan warwarkeeda iyo fikirkeeda iyo kadeedkeeda
waa laga yaabaa inaad la yaabtaan lakin waxa laga yaaba kuwa yarare gurigiina jooga haddaad weydiiso inuu ku leeyahay intaasoo goorma isku dayo is yidhi ku fakeri ma istishaa baan ku fakeray. kuwa waaweyne profesorada ayaa kuwanba saa u fakera. haddaba hadday waagaa hore ahayd waxyaabo qof intuu shakigu ku dhaco uu meel cidlaa iska fadhiisto ama isagoo isku mashquula ama istila ama saa imka waxay noqotay meel ducaad preachers dad baaba faafinayo ku dhawaaqayo oo xuquuq ka dhigayo oo le bini aadamku xaq buu leeyahay inuu diimaha ka tago, bini aadamku xaq buu leeyahay inuu shudud sameeyo, bini aadamku xaq buu leeyahay xorriyaad iyo xuquuq iyo kan iyo lawyers iyo qawaaniin iyo dowlado iyo mujtamacaad dhan oo xumaha guide garaynaya oo ilaalinaya oo dhigaya. ugu horeyn ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay horta inaynu ilaahay barino. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنه إلهي ويديسنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إلهي أنت نهارون سكدب قلوب تيدها ويعنين كوا أنبضة هنقدقين شبهاتك هالدباء لو قربي دتك وحيالان قلة العلم أو ضعف البصيرة بين هذا أقون درو إلهي وحي قيس له أقون درني يا أركت حما نالش اللغو أركت حميهي أما بصيرة دا قفكو يتدبر كيسو الليتو ويا إلهي وحكستو الدين تيسا خلافة وحكوت المامية إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إن يتبعون إلا الظن وملأ وحا الراعي أنبا إليه والشبهات ووحي سموتسيين حقيقة ما جرته إيا وما تهوى الأنفس وحي نفط الضونطي إن نفط الله سيو freedom إنه وحي دونت السمين كرته qofku wuxuu doono inuu tijaabin karo, cabbi karo, fuuli karo, wuxuu doono inuu samayn karo. ilaahay wuxuu ku tilmaamay markaa dadka waxyiga diidani waxa ay rabaan waa labadan waa dadka madowga ku sugan. ay professor weydii mulxida what is the meaning of life day noloshu maxay macno leedahay, waa maxay macnaha noloshu, maxaad u nooshay, waa no answer. cid ka jawaabi kartaa ma jirto. waayo allihii bini aadamkana abuuray baa ka jawaabi kara waxa loo abuuray. gaadhigaa ninkii sameeyuunbaa kuu sheegi kara waxa loogu talagalay. shay kasta ciddii samaysuunbaa taqaanaa, laakiin shayga la sameeyey isagu ma yaqaano wuxuu u joogo. therefore markay waxyiga ilaahay diidaan waxay ku soo noqdaanuun mas'ale ah lama garanayo, jawaab lama hayo. ma la rajaynayaa in jawaab la helo? maya, iyana ma jirto. waayo wuxuu hadduu maadadan hor taalle laabka la geliye la wadwado hadduu dhaafo waxaa ka dambeeya jawaab ma leh. cidda ka jawaabi kartaan waa alle subxaanahu wa tacaala. sida ogeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa walaa tattabici ilhawa fayudilaka can sabiili illah ina aladiina yadiluuna can sabiili illahi lahum cadaabun shadiid bima nasuu yowma alxisaab. waxay ugu sii daran tahay lumista caynkaasi iyo marka haddana inta la qurxiyo magac kale la saaro. bini aadamku bay yidhaahdaan abuurkiisa waxaa ka mida bini aadamka oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku abuuray ayan kaan ha ahaadee xumaha inay naftu diiddo. ilaa xad uu nebigu leeyahy alitma maa xaaka fi nafs, inay naftu diiddo. sidaa ogeed bini aadamku isagoo raba inuu xuma sameeyo ma yidhaahda xumaan samaynayaaye jas magac kaluu u bixiyaa si uu isu qanciyo. maalan dowladahani markay
dowlad yaroo miskiinadan waxba haysan lagu duulayo ma yidhahdaan tan dowladda yar baanu afka soo jebinaynaa ama lama yidhaahdo shidaalkeeda aan rabnaa inaanu soo qaadano ama inaanu soo boobno waxaa la yidhaahdaa shacabka xorriyadda la siinaya iyo dictator baa magac kalaa loo bixiyaa wuxuu isku qancin karo qofkiiyo waa aqbali karaa lagu tilmaamaa xumaha marka la tilmaamayo lo odhan maayo waa xumo waa xorriyad iyo waa xuquuq iyo erayo kaloo bini aadamku uu jecel iyo agtiisa qiimo ka samaynaya ayaa dheeha kalaa la saara si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy afaman zuyina lahu suu'u camalihi afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'ahu xasana faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa ilahay wuxuu tilmaamaya ma mid loo qurxiyey camalkiisii xumaa oo u arkay inuu wax fiican yahay camalkiisii xumaa baa loo qurxiyey markaasuu mooday wax fiican inuu yahay kaa iyada ninka xaqa arkaya may siman yihin ilaahay baa fain allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa idan ayuha alaxiba maanta dunidana aa ku nooshihiin inkastoo laga yaabo dhul fog oo aydan filanayninba in qurunkani gaadhay waayo dunidu badkan mubaashirka iyo tv-gan iyo netkan iyo waxaan isku xidhan dunidii waxay ka dhigtay maxay meel isu furan waxay yidhaahdaan taariikhdii hore bini aadamku cadowgiisa dagaalkaasuu isaga ilaaliyo qalcad buu samaysan jiray bay yidhahdaan qalcada iyo suur dabeetana inta gudooda la galo dee ninkan faraska watiyo seefka watiyo leebka watiyo wax wata aanu ku soo gaadhaynin xadaaradda waxay gaadhay bay yidhaahdeen hubkii la samaystay qalcaddaa in la dumin karo ama madfaca noqoto ama dayuuradda markaa nin meel isku qarin karaa oo oodan karaa waxay markii hore kale afkaarta iyo waxaasina cidda meel haddaad tidhahda ha iga soo gelinoo xad aad ka samaysato xuduud yeelato oo aad u diiddo dadkaasi inaanay fiisa la-aan meeshaada ku imanin waxay ahayd maca afkaartiisa inuu kaa joogo maxay halkaa uu kaa joogay technologiga cusub wuxuu sameeyey inaan ninnaba meel wuxuu ku qarsan karin ninnaba markaa gurigii aad adigu dhisatay carruurta iyo islaanta ku xaraysataa laga dabagalay iyadoo aan cidina adiga fasax ku weydiisanin dabeetana waxay u baahdaan oo dhan meesha gudaheeda bahalka yarow gacanta ku sito ayuu ugu jiraa marka meel badanoo lagu dhuuntaa ma jirto laakiin wax waliba xal bay leeyihin waxa uu dadku u baahan yahay waxa weeyaan mushkiladdii waa tanoo waa aragnaaye xalkeedu muxuu yihi ma inaynu isdhiibnaabaa xalkeedu qur-aanka ilaahay wuxuu tilmaamaya wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxay dhahaan labadan mas'ale aayaddana ay sheegtay labadan xanuun aynu sheegnay waa dawadooda ashubahaat washahwaat shahwaatu nafsina asabr ayaa lagu daweeyaa bay yidhaahdaan waa can ilmacsiya iyo maladaadkeeda in laga sabro cibaadada in lagu sabro sabr baa lagu daweeyaa bay yidhaahdaan tan kalena dee yaqiin baa lagu daweeyaa yaqiintu adilay ku dhisan caqiida lagu daweeyaa waa in shubhada tan qofka qalbigiisa laga saara marka cilaajka naafica ahi inta aynan shubahaadka xabad xabad uga hadal aan la odhanin ilxaadka maxaynu ka nidhahnaa kaa maxaynu ka nidhahnaa kaa maxaynu ka nidhahnaa kaa maxay intaanad waxaa ka odhanin waxaa ka horeeya asaaska inaad binayso asaaska inaad binaysaaba ka horeysa oo ah dadkanaynu dhalle iyo ummadeenna iyo nafteennaba inaynu iqaamat alxuja cala annaas samayno inaynu marka hore dadka diinta caqiidadooda dhisno intaynan shubahaad ka reebin qofka hadduu caqiidadiisu si fiican u dhisanto shubhada wuu iska celin karaa laakiin haddaan usuushaba dadkan la barin shubahaadkana loo bandhigo waxaad rajaynaysaa muxuu noqonayaa marka ilahay qur-aanka wuxuu leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik
وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بربا إلهي لي يقرأ أنه لا إله إلا الله أقوم بي أبا هانتي إذا وحلنا أغهر الرين شيء كواد وإقامة الحجة على الناس وضدك أصول العقيدة إني نوردقنا أصول العقيدة إني نوردقنا هدانا دوردقين وأدكت صدح ذا وحان شيء مدنا بينت كعلسه والله يا صدح ذا بين هذا تقول نعبتي إنه الماء ملحد نقضين أطربين إنه شوات كبيرين أطربين إنه دروغستي نوعا نقضين أطربين لكن kaasi waa waxaad sheegaysee waxa aad samaynaysaa ma tilmaamaya waxaad samaynaysaa koowaad ee cilaaj ahay wuxuu yahay in caqiido sax ah aynu marka hore dadka bar caqiido sax ah oo ilaahay kitaabkiisa adilla ku filan hadday tahay adilla jiritaanka ku saabsan hadday tahay adilla ku saabsan sidqu nubuwa hadday tahay adilla ku saabsan qiyaamaha iyo adilladu u baahan yihiin hadday waxa laaliya waxaynu mas'ala ka warramaynaa ama qayb ha haato ama shaahidaat waxay doontaba ha noqoto adilladeeda oo caqliya inta inaan sharciga u tagin waayo quraanka dadkii lagu hadlayay mabay rumaysanayn marka hore nabi maxamed gaal uu yimi soo gaalama ahayn dadku dabeetana quraan baa soo dogayo sidaa ku dhabaa la lahaa gaalkani quraannimo isagoo aan u rumaysnayn baa waxa la tilmaamayay masaa'ilkani inay logic yihiin oo caqligiisa gelayaan inay ka dhaadhicinayaan ilaahay jiritaankiisa iyo rasuulka rasuulnimadiisa iyo aakhiro jiritaankeedaba isagoo gaalaa lagula hadlayay inaga waxaynu haysanaa quraanka in dadka mu'miniinta lagula hadlo gaalka maxaa lagula hadlaya markaa maadaa wax kale keenaya ilaahay nabi maxamed quraankan buu dhiibay oo yidhi ku dheh qul miidhani ku taalla ku dheh oo saa u sheeg hadday saa ku idhaahdaanna saa ku dheh shubahaadkooda ilaahay quraanka tirinaya saasay yidhaahdeen saadhe baa ilaahay leeyahay saasay yidhaa waxay shubha yidhaahdeen quraanka dhexdiisaad ka helaysaa oo ilaahay ka jawaabayo subxaanahu wa tacaala idan waxaynu leenahay caqiidadan wixii lagu dhisi lahaa ee gaal iyo muslimba loogu dhisi lahaa loogu sheegi lahaa haddaad qof rabto inaad diin u sheegto waxa ugu fiican aad u dhiibta waa kitaabka quraan ah daan luqa carbeed garanayn bal cala alaqal kitaab tafsiir oo afkiisa ku qoran inaad u dhiibto axsan shay ama بروفيسور هذا ama wuxuu doonaa haado ama nuclear ku takhasuso ama wuxuu doonaa ku takhasuso ilaahay qofkan abuuray kan buu soo dajiyay laguma odhan adigu caqligaaga wax uga daydayo adigu wax ku dhexdhex cidna kuma odhanin laakiin waxaynu u baahanahay inaynu kitaabkan fahamno marka maadaama isaga loogu talagalay gaal iyo muslimba in lagula hadlo wax loogu sheego wixii aadam dhalay in lagula hadlo iyo wixii jimba ka tirsanaa kitaabkan waxaynu u baahanahay asalka ah inaynu dadka u dhigno isagaynu ka helaynaa mas'alo kastoo layna weydiiyey jawaabteeda laakiin waxay ku xidhantahay madaa fahmina inta aynu ka garanaynay ku xidhantahay jawaabtaas aynu kala soo baxayna aqoonteennu intay gaadhsiisantahay aynu kitaabka u leenahay kaasi waa qodob koowaad aan tilmaamayo diinta inaynu dadka barro waa xujadii nebi maxamed loo soo dhiibay ee ku oogno xataa kaan rumaynaynin inaynu xujada ku oogno waayo qur-aanku wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay aakhira ambiya inay imanaysaa cidiba la socon ama midi la socdo ama laba la socdaan maxaynu odhanaynaa ambiyadaasi may guulaysanin miya maya ambiyadu shaqadii loo diray way qabteen oo waa maxay shaqada loo diray shaqada loo diray waa dhowr miduun inay noqoto inay xujada markay dadka u sheegaan inay dadku rumeeyaan kuwa waxa la yidhi taskiyatu nafsi iyo tacliim buu sameeya inay tababaraan oo naftooda tahiraan oo waxyiga baraan oo diinta baraan oo kuwa kalena waa iqaamatu alxujati calayhim aakhira inaanay cudurdaar helin waayo nebiga kan shaqadii loo soo diray hadday raaci waayaan xujaduu ku oogay aakhirana cudurdaar ilaahay kama helayaan subxaana wa tacaala wuxuu nebigu qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya cidna inaanu cadaabin wamaa kunaa mucadibiin xataa nabcatha rasuula ma cadaabna cidna inaan rasuul soo dirnayn rasuulkan haddaanay rumaynayn maxaa fircoon ilaahay wuu ogaa inaanu rumaynayn maxaa loogu soo diray muse inuu xujada ku oogo
qur'aan aakhira inaanu odhanin waxba aniga ima soo gaadhin iyo waxba garan maayo inaanay odhan. idan xujada inaynu oognaa oo dadka diinta barnaa labada mid un bay noqon, ama way islaamiyo diintay qaadan, ama aakhiray cudurdaar waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa aanay cudurdaar ka helaynin. kuwaynu dhallayna waa la mid, iyo kuwaynu la dhaqanna iyo kuwaynu wada noo dhamin, inaynu xujadaa ku ogno dadka diinta wada barro. haddii kale innagaa dee dembaabayna. nimankii reer banu israa'iil ee magaalada deganaaye laga mamnuucay sabtada inay ugaadhsadaan, markii lagu yidhi war maxaa wax ugu sheegaysaan, maxay yidhaahdeen? macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun. ilaahay inaanu cudurdaar ka helo, xujadii inaanu ku ogno, inaanu caddayno, iyo haddii dee qalbigooda diini gelayso inay ilaahay ka cabsadaan subxaanahu wa tacaala. idan waxaan leenahay asalku waa inaynu dadka diintan iyo qur'aanka kan u sharaxnaa, u sheegnaa, gaadhsiinaa, ku gaala iyo ku muslima iyo ku kastaba. waa inaynu isaga ku tasallux, waa inaynu isaga hub ka dhigannaa oo uu noqdaa wuxuu uu sheegayaa wixii aynu saxa ku garan lahayn. inta xanuunku ku dhacday saynu u gallaa. kow, waxaan leenahay dhallinyaradan wareertay ee afkaarta qaldane tirada badan le laga dhaadhiciyey, waxay u baahan yihiin cid la niqaashtanta ee in lasii durkiya uma baahna. inaynu intaynu ceebayno, ereyno oo fogeyno maaha. laakiin laa takunuu cawnan lishayطaani calaa akhiikum, xadiidkii imaamu axmed soo saariyo qolyo kaleba, inkastoo sanadka culammadu ay daciifiyaan, laakiin shacayb alarnauuti duruqdiisa intuu wax isu gegeeyaa buu taxsiininaya. ninkii gacanta la jaray ee uu nebigu ka yara murugooday say sheegayaan, kaannaka karihta qaطcahu bay yidhaah, ilahay rasuulka malaa gacan goyntiisa kan waad nacday. wamaa yamnacunii buu yidhi laa takunuu cawnan lishayطaani calaa akhiikum. ama xadiidkii kii khamriga cabay ee markii dhowr jeer la keenay ee dhowr goor markii dambe ay qaar lacnadeen oo maageen oo ku lahaa innahu yuxibu allaha warasuulah, waar ilaahay ha ugu kaalmaynina shaydaan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. qodobka labaad waxaan leenahay itaaxatu alfursa lishabaabi an yubdi kula maa cindah, inaynu ka waran siino oo fursad siino, bal ninkan waxa madaxiisa ka guuxayo o dhan inu soo bandhigo, waxba inaanu la qajirin. hadduu markuu erayku yidhahda afka kaga boodo, dee wixiisii wuu la aamusi, laakiin way ku duugan yihin, waxba kamaa daweynin, waa ku duugan yihin. weliba waxay u badan tahay inay ku sii badato un cid dambena aanu wax weydiinin, bale gruubkii iyagu negatifeka u sharxayay inuu ku sii xidhmo unu ay shubahaadka ku sii badiyaan, cid shubhadan ka saartana aanu haysanin. sida awgeed nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam gaal baa u yimi, ay carabi u soo dirtay. waa gaal loo soo diray inuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka saaro. aduu ka fiirso, cutba bnu rabiica abalwaliid waxaa loo soo diray inuu nebi maxamed diinta ka saaro. dabeetana nebiga intuu yimi proposals buu la yimi, niyow haddaad waxaan doonayso waxaasaanu ku siinaynaa, haddaad kan doonayso kaasaanu kaa dhiganaa, haddaad kan doonayso, laakiin dee ilaahyadan iyadan iyo waxaad warkan aad ka sheegaysaa dhaaf. marka wuxuu wadaa in compromise diinta laga galo, laga heshiiyo, oo isaga iyo nimankii quraysheed negotiation ay wada galaan, oo nebigana la siiyo wixii uu baahan karo. haddaad boqor doonayso boqor baa laga dhigayaa, haddaad xoolo ku doonayso waxa kan annagaa ninka ugu xoolo badan kaa dhigayna, haddaad gabdho doonayso inanta ugu fiican baa lagu guurinaya. yacni wixii maadiya aad rabto ee nolosha ku saabsan, you will get it. laakiin waxaan u baahannahay uun dee inaynu masaa'ilkan ka wada hadallo, aad ilaahyada iyo baabkan cayda ka dayso. nebigu waxa iyadoo loo akhrinayo wuu dhegaysanayay, kuma odhanin war bal waxaa gaalkii wuxuu ku hadlayaday gaalnimadaasaad ila timi, kuma odhanin, ee wuu dhegaystay. markuu dhegaystay uu ninkani warkiisii gaalnimada ha dhammaystay, nebigu uma jawaabin markiiba, wuxuu ku yidhi afaraqta yaa abalwaliid, warkii ma dhammaysatay weli mise waxbaa kugu hadhay buu leeyahy. yani isagu weli rabaa inuu jaan siiyo.
أفرغت يا هبل warkii ma kaa soo wareegay buu leeyahay hadalkii ma ka baxday ma dhammaysato markaasuu yidhi haa markaasuu nebigu aayad qur'aan ku akhriyay suurad suwarka makiga qaybteeda hore ka mid ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku akhriyay suuraddii markii uu dhegaystay ayuu nin carbeed afkana garanaya buu hay uu isbedelay dabeetana nimankii carbeed markuu noqday waxay dhaheen wallaahi rabiica bnu cutbata bnu rabiica sidii uu inagaga tegay si aan ahayn buu la soo noqday bay dhahay ninkii aynu diray warka aynu ku diray maaha maxaan qisadan uga dan leeyay qisada imaam alalbani wuu taxsiiniyaa fii siiratihi waxaan leenahay waxa weeyaan qofkan inaynu dhegaysano bal horta waa ibtilaysan yihi dhib baa haysataa laakiin mushkilaadkiisa kan iyo waxaan madaxiisa ka guuxay iyo waxaanu ismoodsiiyey ama waxaan loo akhriyay inaynu ka dhegaysano waa mid labaada inaynu ogaanana xiwaarku dee qur-aanka ilahay wuxuu inoogu sheegay ambiyo xataa ilaahay wax weydiisanaysa waid qaala ibraahiimu muxuu nebi ibraahim yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta ilaah waxaad i tustaa dadkan dhinta bal sidaad u soo noolaynayso ama nebi muuse inuu yidhahdo ilaah waxaan rabaa inaan ku arko idan su-aashu waxay doonta ha ahaato waxaynu u baahannahay dadkan inaynu dhegaysanno oo qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa gaalo badan oo xiwaar lala sameeyey qaar wax diidanaabaa ilaahay wuxuu yihi qul waxaad ku tidhaahdaa ara'aytum maa tadcuuna min duuni illaahi arunii maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat iituunii bikitaabin min qabli hada aw athaaratin min cilm in kuntum saadiqiin ilahay wuxuu leey waxaad ku tidhaahdaa war bal waxaan aad baryaysaan ee cibaadada ula imanaysaan itusiya dhulkan waxay ka abuureen maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat kownkan dhana sidan u dhisan ma qayb bay leeyihin ma shuraka ilaahay ku leeyihin iituunii bikitaabin min qablu hada kitaab hore waxaan ka warramayo sidan ku doodaysaan sheegaya hadduu jiro keena aw athaaratin min cilmi ama raad aqoomeedoo waxaa sheegaya hadduu jiro keena yani islaamku cilmi ma diidana laakiin ilxaadku cilmi maaha waa shubahaad laysu geegeeyey saasi awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa xiwaar in lala galo kuwa waxa kana aaminsan ilmahaaga ama ka kugu dhow ama kan xanuunadana ku dhaceen markaad ka dhegaysato wuxuu u baahan yahay inaad maagina haddaad adigu aqoontaa leedayna inaad u jawaabto haddaanad aqoontaa lahaynna inaad u baadi doonto tabiib kaloo daweeya ilmaaga xanuun caadi markuu ku dhaco dee haddaad anigu dhakhtar ahayn oo daweyn karan in dhakhtarba la raadisaa un soo maaha yaa dhakhtarkee fiican baad tidhaahdaa iyo takhasus wadneed yaale iyo waad waraysi tagtaa adigoo raba ilmaha inaad jiradan ka daweyso fakadalik tanna waa jiro kale uun jiro kale ku dhacday adigoon waxba war waxay ahayd inaad u raadiso tabiib kaloo daweeya tabiib alquluub dadka ah ee shubahaadka qalbiga bini aadamka gala daweeya inaad u raadiso weliba waxa fiican xiwaarkaasi inuu kitmaan ku dhaco waxay jecel yihiin inta badan inaan la ogaanin inay waxay rumaysan yihiin waayo cultural pressure baa jira oo inanka caadade reerkoodii cadaabaa walba waxaa rumaysnaa markaa waxa kan iska qiranaya waxba uma arko inaga waxaa jira cultural pressurku wax jira oo nabigu calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wuxuu yidhi jaarkaygii baan khaatiga taaganay jaar aad u xun buu lahaa nabigu wuxuu ku yidhi alaabtaada intaad qaadato alaabtaadii guriga intaad ka saarto waddada dhig ninkii sidii nebigu yeelay buu sidii nebigu amray buu aqbalay alaabtiisii intuu soo qaatay ayuu waddada dhigtay dadkii baa soo mara war maxaa kugu dhacay baa la yidhaahdaa jaarkaygaa dhib batay oo dee gurigaygii baan uga imi inkaar alle kugu ridbay dadkii oo dhan bay yidhahdaan waa maagaan muxuu ahaa ninkan saanu dadka u galay ninkii jaarka ahaa baa markii dambe u tago wuxuu yidhi waryaha dib kuu dhibi maaye soo haraysa alaabtaada wax dambe kuga yacni ninkan brasharkii mujtamacaa bedelay
mujtamaca cadaadiskiisii ayaa bedelay saa daraaddeed ilmahani cultural pressureka haysta buu wuxuu ka cabsi qabaa inuu sheegan kari waayo waxaan laakiin wuu rumaysan yahay wuu qarsanaya wuu rumaysan yahay oo wuu qarsanaya hadday daragtay wuu cabbayaa hadday qurunqadhaadhkan tahay wuu samaynayaa hadday tahay caqiidada tan wuu laakiin wuu qarsanayaa walidaalika waxaa habboon bay yidhaahdaan ragga masaa'ilka khubarada ku ahay in xataa haddaad u geyso cid waxa khabiir ku ah inay labadoodun u dhex ahaato aanad sheegin inaad u dayso isaga iyo tabiibkiisaasi waayo lagama yaabo dee intaad maalin u geyso inuu fuxuu ku yidhaahdo dabeetana u kaco maaha suurtagal waa adagtay qofka kani shubahaadkana waa ku biireen marka wuxuu u baahan yahay muddo in xiwaar u furmo labadooda tan oo masaa'il badan maalinba mid laga doodo oo maalinba mid oo waxaa laga yaabaa bila inay qaadato laakiin bila kadib inuu qancin karo waana tajribe aan aragnay rag u dhuun daloola masaa'ilkaasi oo culamo ahi dad badan oo ay diinta ku soo celiyeen oo loo keenay calaa hada alasaas bay ku daweeyeen inay uun labadooda dooda u dhexayso aan cid kaleba ogaanin siday u wadeenna ay markii dambe qanciyeen waxaan ku soo koobaya markaa ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy wawxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balag nabi maxamed baa waxa la yidhi waxaad tidhahdaa wuxiya ilaya hada alqur'aan liundirakum bihi waman balag qur-aankan baa laysoo waxyooday si aan ugu digo idinka iyo ciddii uu gaadhayaba ilaahay wuxuu leey wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah gaaladii la istilay mid gaalada ka mid hadduu magangelyo idin weydiisto magangeliya ilaa intuu ka maqlaya ilaahay warkiisa baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala uma abliquu ma'manah ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya lam yakun aladiina kafaruu min ahli alkitaabi waalmushrikiina munfakiina xataa ta'tiyahum albayina rasuulu min allah yatluu suxufan mutahara fiiha kutubun qayima may ahayn may noqdeen nimanka gaaleed iyo kuwa ahlu kitaabkuba inay qalloocooda iyo diin xumadooda ka baxaan may suurto gasheen ilaa iyo uu timi maxay bayinada cad waa maxay rasuulun min allahi yatluu suxufan mutahara rasuul xagga alle ka yimi oo ku dul akhrinaya suxuf mutahara fiiha kutubun qayima baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala waxaan rabaa inaan soo koobo waxaan ku soo koobaya wuxuu yahay shubahaadkan ma rabo inaan masaajidka kaga dhex hadlo shubahehebla waxaasay daliishadaan iyo waxaasaa lagu ridiyaa iyo kan dadka wuxuu u baahan dee kutubtay ku qorantay iyo meelahay ku taalla iyo qur-aanka say u isticmaal lahayn baynu tilmaamaynaa laakiin waxaan rabnaa inaynu sheegna waxa weeyaan war meesha tan shubahaadkaasi waa tiro badan yihin iyagoo weliba systematic ah oo schoolinka ka bilaabma ilaa iyo jaamacadda uu qofkaasi bii'ada waxaasiya uu ku dhex jirayo ilmahaas idinku dee masaajidka iyo maqaaxidii lagu murmayay iyo intan baa idinku tagtaan gaal kiina ugu badanee laba ula shaqeeya buu arkaa laakiin dadkan yaryare waa isku melmeen meelahan ay wax ku dhiganayeen iyo meesha inay la joogaan dhibtaasaa haysataa shubahaadkaasna waxaynu leenahay waxay dhibeen dadkii aan loo dhigin caqiidadii diimeed oo marka hore aynu moodaynay dadku sidaa ay inoogu midab eegyihiin un inay ugu caqiide ekaan doonaan oo marka hore inaan xil badan iska saarine xilka ugu badan aynu iska saarray inuu noqdo qur-aanka sida loo akhriyo inaynu wax ka barro jisca muu akhriyi karaa tabaarak buu akhriyi karaa sida loo akhriyo inaynu wax ka barro sida loo akhriyo waxaa ka sii muhiimsan sida loo fahmo marka waxaan ku soo koobayaa darskeenna kan dhibtaasi waa jirtaa ubadkiina way haysataa waa mid ku fidmoobay iyo mid qarka u saaran
inta badbaadisa bersentkeedu waa bersent yar. taariikhda bini aadamka soo jireenkana waxay tilmaamaysaa dadka aan iyagu wadanin manahij wax bedasho dadka kale aan bedelaynin ugu badnaan inay 3 qarni 3 jiil inay ku bedelmaan. dad adugu de sidii saxaabadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dad dacwo iyo diin wado iyagu dadka bedelaya yihiin oo manhaj sito iyagu wax dhigaya kuwaas waa group kale. laakiin dadkan kale iska hijrooday kolba meel iska dega 3 jiil un bay sii noolaadaan. jiilka saddexaad dadku ka mid yihiin aduu ka dhashay isagoo yar khafiifa oo afkiina midhadh ka garanaya waxoogaa cilmi dhegdhegood yarna diinta ka maqmaqlay kaasi ku sii dhala qiyaas muxuu noqonayaa meeshaasii jooga. kaasi ka saddexaad u dhala xaguu noqonayaa. practicalina waa la hayaa. eeg muslimiintii dagaalkii koowaad ee dunida tagtay latin america waxaa ka tegey muslimiin aad u tiro badan oo weliba shaam ka tegay dhulkan la yidhaahdo. atrak baa looga yaqaanaa xaggaa markay tageen waayo baasaboorkii cuthmaaniyiintay siteen oo inay turkiyiin baa loo haystaa laakiin waa carab. marka laga eego xagga dhaqaalaha iyo waxa iyo madaxnimada iyo waa madax oo kuwii wadanadan latin america raggii xukumayey carlos muncim iyo hebel yani raggii xukumayey. marka xagga lacagta laga eegana waa tujaarta ugu waaweyn laakiin xagga diinta marka laga eego way tirtirmeen. xataa masaajidu california imika masaajidadan ku yaala qaar ka mid a masaajidii waagaa hore muslimiintaa hore tagtay ay dhisteen qaar ba hadda barking ah. masaajid 7 dabaqaa jiro hadda barking ah. waa barking gawadhida lagu xareeyo xagga sarena calaamadihii muslimka aad kursiya waxbaa ku qoran. barkinga markaad halkaa kaga soo socoto waxaa suran calaamadaa suran islaamiyo tilmaamaya. kuway sii dhaleen unba iibsaday masaajidkiina ila iyagu masaajid ba ma rumaysnayn daarun awowyadoodii hore ka tegeen bay hayde. waxaan uga dan leeyahay haddii la waayo waxaan cid iska xil saarta oo wax bedasha oo wax dhigta oo dadkana ilaalisa haddii la waayo 3 guruubaan imika idiin sheegaya unbay ka mid noqon doonaan. 3 guruube trendka ah aan leenahay waa trendiska socda ayay ka mid noqon doonaan. in ilaahay dafirta in qoomamka aan la garanayn ku biirta in daraga iyo waxaa ka shaqaysa noocaas unbay wakaan doonaan. waxa quray ku badbaadi karaan dadkaynu u nimin aynu ku badbaadin karnaa waa inaynu diintan sheegno inana isu sheegno kuwan aynu u nimina aynu u sheegno oo ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeedhno. wax kastoo xanuunoo jirana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxma lilmu'miniin. qur-aankaasi wuxuu yahay dadka mu'miniinta hudan wa shifaa shifaaun lima fi suduur laabta waxa xanuun galo oo dhan midda weeyaan. qur-aan baanu soo dejinnay baa ilaahay leeyahay caafimaad wax laga caafimaadana cuquusha iyo qulubta ugu fiican. haddaad labadaa ka waalato waxba nolosha kale ma tarto. dhadhan male nolosha kale. dad balaayiin haysata dhadhan male. noloshu waxay dhadhan leedahay markaad labadaa ka nooshahay. khitaaman lidars dhibtaasaa jirta dawadiina ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa. labadaa waxbaynu u baahanno taxsiin inaynu samayno marka hore badbaadinno intaanay waxaas ku dhicin iyo marka labaad oo ah cilaaj fiican inaynu samayno. sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam.